Dhegaystayaasha qiimaha iyo qaayaha mudanow sida aad la wada socotaanba waxaa baryahan dambe uu dagaal ka dhex socdaa gruubka Habiqleyso iyo gruubka Jugta Culus. Haddaba gruubka Jugta Culus ayaa waxaa ka mid ah Sharma Boy fanaanka ummadda Soomaaliyeed kaasi oo ay saaxiib yihiin Maslax Mideeye. Taageerayaasha Maslax Mideeye ayaa waxa ay ugu baaqayaan inuu Maslax Mideeye uu ka soo noqdo halka hadda uu joogo, kaasi oo ay u arkaan inuu yahay Sharma Boy nin balwadu ay dishatay, wax u kala soocana una jirin, una yahay nin qabiilada isku dhufto. Haddaba Maslax ayaa waxa ay leeyihiin taageerayaashiisu, annagu ma ogeyn Maslax inuu leeyahay balwadaha uu hadda leeyahay saaxiibkii Sharma Boy. Haddii ayse wax ka jiraan sida wararka la sheegayo, waxa aanu halkaa ku tuuri doonaa karaamadii aanu u haynay Maslax. Tani ayaa waxa ay soo baxday kadib markii uu dagaalkii dib u soo cusboonaaday. Sharma Boy oo isagu oohin afka furtay dhahayna baskoolad ayaa lagu qabtay saaxiibkay Deeq Darajo. Tani ayaa markii laga daba tegay waxa ay noqotay been uu lagu kicinayo in qabiilada iyo social media-ga wax lagaga raadiyo. Tani ayaa haddaba waxa ay soo baxaysaa in Maslax looga baqayo in uu isaguna dagaalkan uu dhinac ka galo, taasina ayna u saamaxaynin haddii uu galo dagaalkan inuu dib ugu soo noqdo magaalada Diradhaba. Taageerayaasha Maslax ayaa waxa ay mar labaad iyo mar saddexaadba ay ku waaninayaan inuu ku soo noqdo dalkiisii hooyo ee ahayd Itoobiya, gaar ahaan magaalada Diradhaba. Taageerayaasha Maslax ayaa ilaa iyo haatan shaki weyn ka qaba inuu Maslax isticmaalo balwadaha uu saaxiibkii isticmaalo, walow aan ilaa iyo hadda aan Maslax lagu arkin, laakiin ilawareedyo aanu helnay ayaa waxa ay tibaaxayaan inuu Maslax xilligii uu joogay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho uu isticmaalay balwadda, kadibna uu caayay qabiilada qaar, taasina loo hayo codkiisii. Si kastaba ha ahaatee, waxaa Maslax loogu baaqayaa inuu isagu ka waantoobo, uu dibna ugu soo noqdo magaaladiisii uu deganaa inta ayna noqonin ka qabta iyo daafaca. Gudoomiyaha Habiqleyso ayaa horay u soo hadal qaaday magaciisa Maslax, taasi ayaanu annagu galnay gar si aan uga joojino in Maslaxna dhulka lagu dhufto, laakiin hadda waxa u dhowdahay in Maslaxna dhulka lagu dhufto madaafiicda ku hoobanaysa fanaanka uu hadda la socdo ee Sharma Boy inay Maslaxna ay qaadaan. Tani ayaa Maslax dhowr jeer miseesho loogu diray si uu uga soo baxo meesha, laakiin uu ka dhaga adeegay. Tani ayaa waxa ay sababi doontaa in uu Maslax halkaa ku noqdo gadoon, isagoo oonan waxba ka aqoonin dalka Soomaaliya. Markii uu tegay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxa uu ku degay wasiirkii Ciise ee Inaxaga, taasina kadibna uu ka